رمضان مبارك قولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرنا جحكجين أم بيوتي رمضان كريم walaalahayga meel walba aad joogtiin dhamaantiin kusoo dhawaada channelkeena najxkajin أم بيوتي uga barateen isqorxinta dabiiciga oo walaashina hadii 10 kala cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada waxaan inii sida alaabtan yarta oo weelka inagu jirto alaabtana waxa waaye serum face waaye waa alaab yar oo habeenkii wajiga lagu massage gareynayo waayo oo wajiga dhaqayso oo wajiga cadeynayso wajigana dhalo ka dhigayso sidoo kalena wajiga kobcinayso wajigana liishe iyo qurux ka dhigaysa xataa hadaan nabra ka cabanaysid alaabtan isticmaal insha Allah wajiga liishe kaaga dhigaysa marka alaabtan yar ayaa maanta waxaan jeclaystay in aan la share gareeyo si aad uga faa'iideysatiin walaalahayga insha Allah kana bogto qaybta dambe video soo socoto waxyaabaha aynu ka hagaajisanayna sida aan sameeysanayna waa alaab yar oo hadda u fudud oo guri kasta laga weyn karin marka alaabtan ayaan ka soo tuuranayna walaalahayga maanta insha Allah sidoo kale alaabtan labada waji waa loo isticmaali karaa wajiga saliida leh oo qoyan iyo wajiga dharayga oo qalan labada waji waa la marsan karaa wax dhiba uma keenayso bismillaah alaabteeni wajiga inoo cadeynaysa oo inoo nadiifinaysa oo liishaha iyo quruxda ka dhigaysa ayaynu sameysanaynaa walaalahayga marka hore waxa u baahan tahay oo aan soo qaatay waxa waaye hal xabo yaanya ayaa u baahan tahay waa yaanya mirooleedeyni caadiga ahayd marka hore yaanya u baahan tahay yaanyada halka xaba ayaan soo googooynayaa walaalahayga yaanyadii waa taasa waan soo jarjaray qolofkeedii macallaa way wadataa walaalahayga oo qolofkeeda ma ka fiiqan waayo qolofka fitamiin ayuu leeyahay wajiga siinaya marka yaanyadeeni waxaan ku shubanay makiinada yareed oo weelka lagu shiiday ayaan ku shubanay waan soo shiidayaa yaanyadan wax biyana kuma taabanayay kaligeed ayaan soo shiidayaa walaalahayga yaanyadii waan soo shiiday maasha Allah sidaas ayay inoogu soo baxday markii aan soo shiiday haatanna waan miiranaynaa walaalahayga waxaan soo qaatay miirihii iyo weelka yara aan ku miiran lahayn qashin yar ay leedahay marka qashinkaas yarka ayaan iska reebaynaa anaga waxa inoo muhiim ah yaanyadoo wax qashin lahayn oo biyaheedo nadiifka ayaan u baahanahay marka qashinkaas yar ayaynu iska reebaynaa walaalahayga yaanyadii maasha Allah waan soo miiray sidaas ismuudka ayay noogu soo baxday haatan waxaan soo qaadanaynaa weel kale oo yar aan ku qasanayna alaabtan yaanyadan xabada ama wada isticmaalayna insha Allah marka wax yar u baahanahay laba qaando yaanya ayaynu ka darsanaynaa walaalahayga oo weelkan yar aan ku shubanaynaa yaanyada intaas kale waxaan rabaa inaan kareem ka sameysto intaan kale oo aan ka darsanaynaa waxaan ka sameysanaynaa alaabtii wajiga inuu dhaqaysay oo inuu cadeynaysay waan ku soo shubanay labada qaando yaanyada ahayd weelka walaalahayga sidoo kale waxa u baahan tahay oo weelka yarka caaga yarka inuu jiro waxa waaye waa aloe vera gel waaye waa dacartii oo diyaarsan waaye dacartaana meelaha shoppingka ayaa ka helaysin marka waxa u baahan tahay dacarta diyaarsan ayaa u baahan tahay qaando aan buuxin oo dacara ayaan ku shubanay alaabteeni weelka inuu jirtay marka waxaan isku qasayaa dacartii iyo tomaatadii ayaan walaalahayga si fiican isku dhexgelinayaa dacartana hadii wajiga aad ay ugu fiican tahay wajiga way qaboojisaa guduudkay ka biisaa wajigana waxay ka dhigtaa liisho iyo qurux walaalahayga insha Allah marka ka faa'iideysta dacarta waa isticmaali kartaa mid kale oo freeshka oo markaas geedka ka soo go'day alaabteeni dacarta waan ku soo qasay walaalahayga marka aan ku soo qasay sidoo kale waxaan ku darsanaynaa capsule-kan ayaan ku darsanaynaa waa capsule-kii vitamin E ga ahaa waaye walaalahayga oo wajiga iyo jirka loo isticmaalayay kantinta maahan waa gooni kantinta iyo kan wajiga jirka loo isticmaalo laba kala yihiin walaalahayga capsule-kana meelaha shoppingka ka helaysin marka hal xabo capsule ayaan ku darsanay walaalahayga capsule-kana wajiga aad ayuu ugu fiican yahay vitamin uu siiyaa wajiga wuu kobciyaa quruxu ka dhigaa wajigana dhalaal uu siiyaa waan ku soo daray halka xabo capsule-ka ahaa marka waa isku qasaya walaalahayga si fiican ayaan isku dhexgelinayaa capsule-kii iyo tomaatadii iyo dacartii ayaan hadda si fiican isku qasaya oo si fiican isku dhexgelinayaa yaanyada hadda wajiga vitamin ay siisaa wajiga way kobcisaa wajiga way dhaqdaa way cadeysaa quruxna way ka dhigtaa walaalahayga alaabtii markii aan soo qasay walaalahayga ugu dambeyntii hadda sidaas ayay noogu soo baxday maasha Allah sidaas ayayna diyaar inoogu tahay haatan kaliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo marka sida loo isticmaalo ayaan la share gareynaya waxaad sameynaysaa alaabtan marka hore waa diyaarsanaysaa markii aad diyaarsatid fridge ka gelinaysaa
20 daqiiqo camal ayaa fridge ku heynaysaa intii ku qaboweyso kabacdi ayaa kasoo bixinaysaa waxaa sameynaysaa wajiga iska soo dhaqaysaa waa iska soo nadiifinaysaa wajiga nadiifa ayaa alaabtan marinaysaa wajiga oo ku masaaj gareynaysaa oo si tartiib ah wajiga u marinaysaa oo wada gaarsiinaysaa waliba waxaad isticmaalaysaa habeenkii markii aad seexanaysid oo shaqadaada aad soo dhamaysatid oo aad sariirtaada ajiif kaliya isku diyaarisay markaas ayaa alaabtan marsanaysaa wajiga oo ku masaaj gareynaysaa kabacdina waa ku seexanaysaa markii aad ku seexatid subax hadda markii aad soo dhaqdidna biyo caadi ayaa iskaga raacinaysaa oo iskaga dhaqaysaa wajiga hubaal wajigaaga waa ka dareemi doontaa insha Allah ilaa idinkiis waxaan lagu dhigi doonaa sirta wajigaaga sidaan aad ku yeeshay inoo sheego wajigaaga ku dhaqday alaabta inaba caadi ma ahna wajiga way kobcinaysaa fitamiin ay siinaysaa wajiga way cadeynaysaa dhalay ka dhigaysaa wajigana waxay ka dhigaysaa liisha iyo qurux dhalaalna wajiga way siinaysaa marka waxaa waaye alaab dhan walba ka dhameystiran walaalihiga insha Allah ila soo tijaabiya Ramadaan waaye warka ma ku badinaaye insha Allah ka faa'iideysta oo hadda alaabtan daalka iskaga qaado oo alaabtan habeen kasta wajigaaga waad marsan kartaa hadaa rabtid laba habeen ka bacdi hadaa rabtid hal habeen ka bacdi ayaa u marsan kartaa adiga ayay kugu xiran tahay hadaa habeen kasta aad marsatid waxba kaama dhibeyso wajigaaga oo kaliya ayay hadda insha Allah ku qurxi doontaa ilaahi idinkiis hadda walaalihiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo waa ilan kulanti dambe xiiso leh iyo aniga inii sido video kale cusub walaalihiga waxa waa alaabtan faa'iidada yaanyada ee wajiga u leedahay hore u soo sheegay dacarta sidoo kale fitamiin E ga aan ku darsanana sidoo kale insha Allah marka faa'iidadeeda halkaan lagu ma soo koobi karo walaalihiga videogan hadda share gareeya asxaabtiina la wadaaga insha Allah waxa laga yaabaa qof walaalkaayo inuu ka faa'iideysanayo channelka hadii aad ku cusubtahay soo dhawo minankaaga waaye channelka inoo subscribe garee inoo like garee hadii aad hore noola joogtana waa ku mahadsantahay la joogaaga quruxda badan